doomo laga leeyahay dalka Iran ayaa isku dayay inay is-horgudbaan markab uu leeyahay Ingiriiska oo marayay meel u dhow marin biyoodka ku yaala Khaliijka ee ka hor inta uusan u soo gurman markab dagaal oo ciidamada badda ee Ingiriisku leeyihiin sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi Ingiriiska. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Ingiriiska ayaa waxa uu sheegay in tallaabada ay qaaday Iran ay ka soo horjeedo shuruucda caalamiga ah. Iran waxay ku hanjabtay inay gacanta ku dhigi doonto mid ka mid ah maraakiibta Ingiriiska ee maragacan biyoodka balse waxay beenisay inay samaysay isku day argoosi. Doomahan la rumaysan yahay inay lahaayeen ciidamada ilaalada xeebaha ee Iran ayaa sameeyay isku day ay ku joojinayaan markabka Ingiriiska oo marayay gacanka biyoodka Hormuz. Xafiiska xeer ilaalinta ee ciidamada ilaalada xeebaha Iran ayaa beeniyay wararka sheegaya inay isku dayeen inay qabtaan markab uu leeyahay Ingiriisku. Ma jirin wax isku dhacyo ah oo aan la galnay markab shisheeye sida mid ka mid ah maraakiibta Ingiriiska ayaa lagu yiri warar ka soo baxay ciidamada ilaalada xeebaha wadanka Iran. Wasiirka arrimaha dibadda Iran Mohammad Jawad Zarif waxa uu sheegay in Ingiriisku uu wado warar uu ku abuurayo xiisad. Abubakar Farxaan Cabdi Rooble Abubakar Abka wararka Raya TV.